والله إني ما سنتاي إذاعة إيو تلفزيون كبار ما تيجي أرنتاس وقت جرا ما جرا وبين لابوني بوتة الشنا أنا تيجي بوتة كأه إن كتر حمر جوبه حب كذا والله سعدا وأنا قصو أن بوتة الشنا هذا تلسير واحد قصوًا أبندولي قيمت تبي لبعتنا دو جنرال صالح ليلا يو تلي كحبينتي بوتة لبعتها هو أنا وحصو أنا كساكي شباب من استعدنا يسبح سنة dad shacaba qorshahaynu ma waa dadkan difaacayna dadka su'aalaana nagu xumayn dad in beel la ka sheego ma garan waa gartay ma jiraan ciidamo ka tirsan kuwa dawladda oo ku baxay deegaanada dareerta laga soo sheegaya anaga ilaa hadda ciidan dawladdu ay leedahay oo meesha aaday ma ogin annagu maanta howlgal kale aan ku jirno dhinaca lagu jeelo gobolka Hiiraan qoraxsinka gobolka Hiiraan howlgalkaasaan ku jirnay caawa markaan isku soo hoyno socod wareegsanana anaga waxa la sheegay maqlayna moogiyo anaga wax shuqul ku maleeyna arintaas waa jiraan ciidamadeena militarigu qaybta 12aad iyo qaybta 17aad ciidamo ka wada socda oo dagaalkii dhinaca Matabaan iyo maxaasintii ka dhaxaysay labada degmo dagaalkii ka dhacay ku baxay oo غير الله سيئنا اللي جنرال مسعود ودليا بوتدا شنو تبناد iyo saraakiil anagoo beledweyne ka dirnay tabay oo kolkaas aadeen iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida marka anagu wali barnaamijkan wuxuu lagu yahay idaacadaha ka maqalnaba marka waxaad leedahay ma jiraan ciidamo ka tirsan kuwa dawladda oo bixitaa tagay deegaanada colaadda laga soo sheegay ee waqooyiga beledweyne badtaatan ma jiraan ba anaga ciidan dawladdu ay leedahay oo ciidanka militariga xoogga dalka Soomaaliyeed aniga aan ka warramay gobolka Hiiraan ma jiraan qorshahaynuna maaha inaan dadka la dhaxgalno oo nabadayna moogiyo maaha anaga inaan dagaal ka qayb qaadano jir xoogga dalka maxaa dagaal qabiil u galaba waa xoogga dalka waayahay ugu dambeyn dhinaca kale maanta waxaa jira howlgal ciidamada dawladda ay sameeyeen deegaano kamid ah deegaanka Luqjelo oo dhinaca galbeed beledweyne 22 kilomitir ka jira xalay tirimada fiica magaalada ku soo dhacay kasii hore waxa jiray in qaraxiyo bambooyin gacanta laga tuuray magaalada ka dhacayeen guud ahaan xaaladda amni ee magaalada iyo deegaanada hoos yimaada maxaad kala socotaa maadaama taliyihii militariga tahay maanta barigana waa ka dhaceen dagaal ka dhacay galbeedkana dagaal ka dhacay dagaalka galbeedka ka dhacay waxa hogaaminayay taliye ku-xigeenka qaybta 17aad General Saalax hogaaminayay banduulaha guutiduna wuu la socday meeshaas si aan xog ku hayo cadawga waa lagu eriyay adigu waa laga soo furtay saadad iyo raashin iyo wax iyo dad maxaabiis u xiray inta waa laga soo furtay waana la ceyriyay ciidamaduna ayagoo nabad qabay soo noqdeen sida xogta ku hayo meesha la yiraahdo maxaas iyo muqokuru meel u dhaxeeyo eriyadeeda dad kiciba nin askariya ayay xoolo ku weerareen sida cadawgu la socdo askarigiina wuu ku dhintay asaguna laba nin oo madaxa uu ku dilay min daawac garaabana muqokuru geenay meeshii sida xogta hayo labadaas doon Iran eriyadiisa ka dhacday maanta xogtaasana